shir baan annagana maalin dhow ka qabanay oo uusan ka qabanay laakiin kan aad noo badan kii annaga qabanay masha Allah wax yar baan rabaa dhaho oo hadda maalin dhawitaan ka imaaday wadankii oo hadda dhowr jeer baan tagnay Soomaaliyeena iyo yar dulqaad oo waan jajabinayaa horta waan u hambalyeeyaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ra'iisul wasaarahan aad baan ugu kalsoonahay aniga hadaan ahay qofta wadanka ku koray oo hadda bilaabay wadankii inuu ku noqdo oo isku dayo inuu wax qabto waxyaalo badan baan la soo kulmay laakiin oo dhalinyarada ay dhageysanaysa aan rabo inaan nooga sii digo wadankeena inagu inuu sugayaa inaga wax u baranay inaga u maqan laakiin waxyaalo badan oo inagana ayna fahmayna meesha ka dhex jiro oo ka socdo waxa la dhaho 4.5 iyo waxyaalo kale oo la isku dhex wado wallahi wax badan baan wadan ku soo arkay caafimaad darreen xagga caafimaadka ka shaqeeya oo dhowr qolob baan geynay Beledweyne iyo Kismaayo iyo Muqdisho iyo Bakool taana lagu qabsado waxaan yiri 1 milyan mad geysad xagad ka imaatay adigu waxbarashada way liidataa abaarihi baa jiro wadankeena Soomaaliya waa yaani wadan qani ah dhinac kasto koronto ma lahan baa leeyahay hadana qorraxdu waxay joogtaa 24 hours biyo ma lahan baa leeyahay dhulkeena nagu buuxa marka waxyaalo badan yaa jiro in loo fariisto oo badana inagan dadkan qurbo joogta halkan wax ku bartay ee arka systemka halkan si u shaqeyso intaan la noqono inaan dhahno maxaan aan wax ka bedeli karaa gawdhiyo walaashay oo wadanka ku dhalatay aan waday Kismaayo aan geey ana shoog bay ahayd laakiin ayada shoogeeda waxay dhahay bal adigana iska yar adkayso wadankeena nacina يعني قشن كدول كيجيانو سؤالين ما تسويدين أول قشن كهالكاس الورد لها محي هذا قشن كان أول محاويان كان ماشي ما مل وحرا يعني وحيال بدن وأديك سويدين يصيد أو وطن كان إنك أنت النورمال عن كأهين يا أركي تانا وين كور دليسو سان أنا كشخص أهان ما عند دولة تسوي بدل كرتاي يعني سان شخص أهان وحقوق من كراسان وحقوق بدل كرا مركز ودردارا إذن كان innaga meeshan joogno innaga wadankan joogno innaga wadamadan ku korno wax ku baranay wax ku aragnay aan leenahay aan wax tarno aan wax qabanno xildhibaannimada yeen raadinin wasiirnimo yeen raadinin laakiin wadankeena aan dhisano shacab kasta wadankiisa dhisto hadda tusaale waan dheereeyay waan baxay hadana tusaale hadda Israa'iil amal 60kii Israa'iil wadan la dhoomo jirin markii la ceediyay oo Mareykanka iyo wadamadan ay maxay ahayd ay u carareen qof kasta wuxuu yiri waxbaan baran si wadankayga u dhisto maanta wadankaas laga wada cabsanaya loo dhawaanayna waa mahadsantihiin